بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة مع السلام وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، إن شاء الله تعالى ما أنتوا قرب جمعه سبتنا بالله ما نسوا أيام وحمد الله ربنا موضوع مسلسل له أو كسبسم فوائد الاستغفار. haddii aan kelimadaas aan hore u raacno, istigfaar waxaa weeyo ilaahay laga dalbanayo maqfira ama dembi dhaaf iyo raxmad ood ka dalbanaysa ilaahay subxaanahu wa tacaala. marka qofka muslimka markuu dhahayo astaqfirullah, waxaa weeye wuxuu dalbanayaa uu ilaahay ka dalbanayaa uu ilaahay ka rajeynayaa in laga masaxo ama laga tirtiro dunuubta, ceebihiisana loo asturo. marka qofka muslimka in uu joogteeyo istikfaartaas waxay usoo jiidaysaa raxmadda ilaahay. marka annaga oo bini aadan oo khataayin fii kulli waqtin wa fii kulli xiin, mar walbo iyo waqti walbo, ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu ruuxa muslimka ee xilli walba iyo waqti walba ka dalbado istikfaar ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nagu gubaabinaya. istikfaarta waxaa weeyo waxay kaa tirtiraysaa dunuubta, waxayna kaa dheeraynaysaa amraadda iyo balaayooyinka waaweyn. ilaahay raxmaddiisa ayaad ku dhex jirtaa. marka fawaa'id iyo miro ayaa laga helaa istikfaarta ruuxii badiya, iyo qofka muslimka ahaa inuu noqdo qof allah caza wajalla ku xiran mar walba iyo waqti walbo. laba masdar oo diinta islaamka ay u laabato waa sunnada iyo kitaabka ayaa mataqaanaa ka soo qaadan doonaa daliilo. istikfaarta waxay leedahay ajir fara badan adduun iyo aakhiraba qofka muslimka ah. istikfaartaas oo qofka u leh adduun iyo aakhiraba ajir iyo miro aada u fara badan ayaa ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay istaqfiruu rabbakum inahu kaana gafaara. ilaahaygiin dembi dhaaf weydiista wuxuu ahaaday mid dembi dhaafe. nabiga sala allahu alay wasalam ayaa wuxuu leeyahay waxaan ilaahay istikfaar weydiistaa 70 jeer. qofka muslimka ah waxaa laga rabaa inuu nebiga sala allahu alay wasalam ka dhigto tusaalo ama dayasho wanaagsan. istikfaarta maxaa laga helaa? waxaa laga helaa caafimaad oo wixii cudur oo ku hayo ilaahi subxaana wa tacaala uu kaga caafiyo. waxaa kaloo istikfaarta laga helaa oo qofka muslimka uu ka helayaa sacaado adduunya, inuu adduunka ku liibaan. waxaa kaloo laga helaa istikfaarta inuu ilaahi subxaanahu wa tacaala uu ku cadaabin. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay wamaa kaana allahu liyucadibahum wahum yastakfiruun. marka waxaad uga badbaadaysaa cadaabkii adduunyada iyo cadaabkii aakhiradaba, labadaba waad uga badbaadaysaa. waxaa kaloo ood ka helaysaa inuu ilaahay kaa caafiyo amraada iyo mataqaanaaye iyo wixii cillo ah ku hayso istikfaarta haddaad lahasanto. ilaahay qur-aankiisa wuxuu ku leeyahay istaqfiruu rabbakum huma tuubuu ilayhi yursil السماء calaykum midraara wayumdidkum wayazidkum quwatan ilaa quwatikum. suuratu huud aayadda 52. ilaahay wuxuu leeyahay istaqfiruu ay idlubuu, waxaad dalbataan rabbigiin aad ka dalbataan
dembi dhaafid thumma tuubu ilayhi haddana ilaahay u toobad keeno maxaad helaysaan markaa intaas suubisaan oo ilaahay usoo laabataan oo ilaahay istikfaar weydiistaan yursil samaa calaykum midraara ilaahay cirka ayuu wuxuu ingaga keenayaa roob weli dhibco waaweyn wayazidkum quwatan ilaa quwatikum ilaahay wuxuu in ziyaadinayaa awoodiini awood kaliya uu zaidinayo aayadaas wanaagsan waxaan ka arkaynaa ilaahay subxaanahu wa tacaala istikfaarta athar cadiim ama raad weyn inay ku leedahay awoodda insaanka ama bili-aadanka awooddiisa in mataqaanaa ilaahay uu kordhinayo istikfaarta noocyada awoodda ee jirka iyo caafimaadkiisa lianna waxay dhahaan culamaau nafsi ama culamaau tibi qofka hadduu jir caafimaad qabo uu leeyahay awood ayuu leeyahay jirkaada hadduu mar caafimaad qabo oo jirkaada uu caafimaadsan yahay awood ayaad leedahay marka qofkii doonayo inuu helo awood jismi ah istikfaarta ha badiyo bisababi marad sababtaas oo xanuun ama cillo ama mataqaanaa istikfaarta dad badiso ilaahay subxaanahu wa tacaala quwadaadii ayuu quwad kale kugu ziyaadinayaa hadalkaas waa hadalki ilaahay caza wajal nabiga sala allahu calayhi wasalam wuxuu leeyahay man lazima alistikfaar qofkii istikfaarta laazimo waxaa laga wadaa joogteeyo xilli walbo jacala allahu ilaahay wuxuu u yeelaa lahu asaga min kulli tayqin makhraja ciriiri walbo meel uu ka baxo ayuu ilaahay u subiyaa wa min kulli hammin faraja hammi iyo murugo walbana ilaahay faraj iyo meel uu ka baxo ayuu ilaahay u subiyaa warazaqahu ilaahay wuxuu ka irsaaqaa min xaysu laa yaxtasib meel uu ka ajir xisaabsanaynin ama una filanaynin ayuu ilaahay ka irsaaqaa meel aad waxba ka filanaynin lianna waxaa jirto wax aad filanayso iyo waxaad filanaynin marka ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu kaa irsaaqayaa meel aadna filanaynin waa xadiis saxiix ah xadiiska shariifka ah haddii aan sii raacno istikfaarta haddii aada laasimto waxaad helaysaa kaalmo ilaahay iyo inuu ilaahay kuu farajo ama ilaahay uu kuu furo ama ilaahay uu kaa furo hamiga iyo kurbadda iyo weliba maradka noocyadooda kala duwanba marka kurbadaas taas oo sababayso hamiga iyo qamiga daran ruuxa bini-aadanka hadduu istikfaarta laazimo wuxuu ka helayaa halkaas farad degdega ayuu ilaahay ka helayaa fadliga ay leedahay istikfaarta oon lagu soo koobi karin hal fadhi iyo laba fadhi qofka bini-aadanka oo mar walbo baahano ilaahay caza wajalan u baahan ayaa mataqaanaa wuxuu leeyahay cilal iyo cilooyin iyo gaabin iyo dhibaatooyin badan mar walbana waa baahano baahidaas oo dhan waxaa mataqaanaa kaa daboolaysa istikfaarta culimmadu waxay dhaheen ilaahay subxaanahu wa tacaala anzala allahu daa'akum wa dawaa'akum ilaahay wuxuu soo dejiyey daawadiina iyo cudurkiinaba waxay dhaheen cudurkiina waxaa waayo addunuub dunuubta waa daawadiinana waxaa waayo alistikfaar marka waxaa waayo ilzimu alistikfaar laazima istikfaarta xilligan aan hadda joogno ay badatay gaflada iyo mataqaanaa ilaahay ku xirnaasho la-aanta ayaa mataqaanaa dadkii muslimiinta ahaana ay ku xirnaadeen musalsalaad adduun waxyaalo kale ayaa mataqaanaa inay ruuxa bini-aadanka uu cararo istikfaarta ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu leeyahay fafiruu ila allah ilaahay u cararo aayaddan kaloo caza wajalla wuxuu ku leeyahay فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا سورة النوح وايو آيادة طبنات إلى آيادة لبئية طبنات إلهي وحوليه هاي
nebi nuux ayaa wuxuu la hadlayaa qoomkiisii oo ahaa qoom daaqiin oo ahaa qoom xadgudbay oo ilaahay yidhi nebi nuux markuu ka hadlaayay wamaa aamana macahu ilaa qaliil wax yar un moogii wax rumeeya ma laho xilligiis inaad ogtihiin uu ahaa xilliga nebiga ugu waqti dheeraa nebiga ugu waqti dheeraa ayuu ahaa 950 sano ayay culamada ku qiyaasaan haye intii lagu soo diray uu nebina asagoo oonan gaarin xilliga ugu fiican ilaahay ma soo diro nebi maxamed waxaa lagu soo diray 40 sano lagu soo bixiyey inta la soo diray kasii horo ee allahu aclam marka ilaahay wuxuu leeyahay wamaa aamana macahu ilaa qaliil qoomkaas ayaan ka hadlaynaa ilaahay subxaanahu watacaala asagoo qoomkii nebi nuux wacdinaya ama waaninaya wuxuu leeyahay faqultu استغفروا ربكم إنه كان غفارا ور إلهيين دنب داف ويديستا الله وحو هذا مد دنب دافه حديا دنب داف إلهي كعستا إلهي محين سينايا وح الله وحي بالآن جعلهم لن أي إله سينايا يرسل السماء عليكم مدرارا عرك أيهم محين كينا يا رب لبعوا وين ويمددكم بأموال إله سبحانه وتعالى وحوك لن سينايا مال بن سينايا وبنين ويلل في الله سبحانه وتعالى سو بلادك وجه وحيجعلهم ويلل أي يجعلهم ويجعل لكم جنات إلى هذا نوح إنسنا بيرا أي إنسنا ويجعل لكم أنهارا وحاصل لنا وحين قناة وبيال وحي إله إنسيا لنا وحين قناة وبيال بيرها حولها ويلشة وحد وحين قناة أنهارا بين قناة استغفرت فضائش هذا iyo waxyaalaha miraha laga dhaxlaayo oo aad iyo aad u fara badan